madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada dalka Djibouti dhigiisa dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle labada madaxweyne ay weheliyaan mas'uuliyiin sare oo ka tirsan labada dawladood ayaa ka wada hadlay xiriirka qotada dheer ee Soomaaliya iyo Djibouti xaaladaha gobol iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo sidoo kale walaalnimada labada shacab madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in dawladda iyo shacabka Djibouti ay sii wadi doonaan taageerada iyo sidoo kale garab istaaga dawladnimada Soomaaliya isagoo soo bandhigay dadaalka ay ku bixiyaan nabadda amniga iyo sidoo kale xasiloonida dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in Soomaaliya ay maanta soo gaartay dhamaadka howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ADMIS haatan uu bilaabo doono howlgal ku meel gaar ah oo muddo kooban soconaya kaas oo lagu magac daray EUSOM qorshuhuna uu yahay in dhawaan ay si buuxda ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la wareegaan guud ahaanba amniga dalka sidoo kale madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka Djibouti sida ay walaalnimada leh ay u garab istaagan yihiin dalka Soomaaliya isagoo uga mahad celiyay muddada dheer ee Djibouti ay garab istaagneed dawladnimada Soomaaliya